agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha ee dowladda koonfur galbeed mudane maxamed yaasiin cabdulaahi oo uu weheliyo taliyaha booliska dowladda koonfur galbeed cabdi ibraahim shaamow cabdidheere ayaa maanta si rasmi ah ugu soo xiray degmada Baraawe ee caasimadda dowladda koonfur galbeed tababar muhiim ah oo ku saabsan maareynta saldhigyada booliska kaasoo loogu talgalay taliyayaasha iyo taliye ku-xigeenada ciidamada booliska. Tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda amniga gudaha ee koonfur galbeed ayaa waxaa ka qayb galay taliyayaasha iyo taliye ku-xigeenada saldhigyada booliska gobolka Shabeellaha Hoose. Ujeedada tababarka ayaa ahayd in kor loo qaado aqoonta, xirfadda iyo hanaanka hogaamineed ee taliyayaasha iyo ku-xigeenadooda si ay ula jaanqaadaan xaaladaha amni ee casriga ah una gutaan waajibaadkooda si hufan. Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda amniga mudane maxamed yaasiin cabdulaahi iyo taliyaha booliska koonfur galbeed cabdi ibraahim shaamow cabdidheere ayaa si wadajir ah ula dardaarmay saraakiisha ka qayb galay tababarka ayagoo ku dhiirigeliyay inay ka faa'iideystaan aqoonta ay heleen una adeegsadaan horumarinta ammaanka iyo adeegida bulshada. Maalmahan waxaa noo socday tababar degmada Baraawe saldhigyada Shabeellaha Hoose dhammaantood traininkan oo wasaaradda amniga soo qaban qaabisay ayaan u mahadcelinayaa anagoo idinku kalsoon oo aqoontiina ku kalsoon kartadiina iyo dadaalkiina aan ku kalsoonahay haddana waxbarasho ma dhamaato inaan si wax sii kororsano maalin kasta maxaa la yiraahdaa iyo waqti kasta waa wax loo baahan yahay waaye waa inta maxay joogteen maalmahan waxa aad aqoon kororsi aad qaadateen inay fadhiyadiina aad kula noqotaan in maxaa la yiraahdaa shaqadiina halkiisa aad ka sii wadaan waa soofa la yiraahdaa waa la soofayaa mugtahay tuureyda markii la tumo haddana mar labaad waa la soofayaa marka soofu way tan maxaa la yiraahdaa dad soo shaqeeyay oo maxaa la waaye arag ah oo aqoon leh oo saldhigyada soo hogaamiyay aad tihiin hadii tababarkan markii ugu horeysay tababar noociisa oo kale lagu qabto gobolkan Shabeellaha Hoose gaar ahaan caasimadda dowladda koonfur galbeed Baraawe wafdigan inta soo gaaray waxa qayb ka ahaa saraakiil kala duwan ka socday qaybta gobolka Shabeellaha Hoose taliyayaal saldhig iyo taliye xigeenno intuba iyo saraakiisha ka howlgasha degmada Baraawe oo ah caasimadda dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. tababarkan tababar bilow ah waaye haduu Ilaahay raa soo taliyaha idin kula dardaarmay waxa inta ka faa'iideen ina xarumihii iyo stationadii iyo ruuhii ka imaadeen kula laaban doontaan haduu Ilaahay raa ciidankii iyo maadaama idinkii saraakiil oo shaqeynaysa aad tihiin kaliya dhowr faa'iido leeyahay tababarkan midka koowaad oo saraakiisha kala duwan ka howlgal saldhigyada gobolkan Shabeellaha Hoose degmooyinkiisa kala duwan inay isku arkaan kala warqaataan isbartaan waxa laga yaabaa inay telefoon isku la hadli jireen tan koowaad taas waa tan labaad aqoontii iyo way aragnimadii qof walba saldhig ku heeyay in la kala faa'iiday tan xigtana casharadii iyo waxyaalihii muhiimka ah meesha laga jeedin iidan qayb ay ka ahayd marka haduu Ilaahay raa tababaradan iyo wasiin joogteen doona haduu Ilaahay raa haday noqoto saraakiisha guud ee saldhigyada hogaaminaya haday yihiin baarayaashii haday yihiin section kala duwan ciidanka booliska wuxuu leeyahay waaxyo kala duwan ama qaybo kala duwan hogaanka taraafikada hogaanka dambi baarista hogaanka turbataariyada hogaanka miina baarista macnaha hogaanadaas oo kan xirfadaha goonida mar kale waa gaari doona haduu Ilaahay raa. Cabduqaadir Fiqi, telefishinka iyo raadiyaha koonfur galbeed magaalada Baraawe.